noloshu waxay ku saabsan tahay dheelitirnaanta wanaag laakiin dadka yaan la igu xadgudbin aamin laakiin yaanan la khiyaanayn ku qanacsanow laakiin weliga ha joojin horumarinta naftaada ha ka walwali naftaada wax saxda ah iyo wax qaldanba laakiin ka walwal wax muhiimka ah xusuusi naftaada inay caadi tahay inaadan kaamil noqon waxaad ku xiran tahay kaliya gidaarada aad adigu dhisto aqoonta naftaada waa bilowga xikmadda oo dhan markaad u baahan tahay wax aad rumaysato meel wanaagsan oo aad naftaada ka bilowdo qosol badana waxay nadiifin doontaa maskaxdaada ku qosol naftaada marar badan waxay nadiifin doontaa qalbigaaga waxa ugu xun ee aad naftaada ku sameyn karto waa inaad naftaada ku qiimeyso indhaha dadka kale dadka xunxun waxay keenaan fikrad xun naftaada ka xoree dareenka xun nolosha aad bay u wanaagsan tahay markaad joojiso inaad ka taxadarto waxa uu qof walba qabo oo aad bilowdo inaad dhab ahaantii u noolaato naftaada u joog kuwa kale laakiin weliga ha ka tagin naftaada hay weydiin sababta ay dadku ku dhibaan isweydii sababta aad u ogolaatay inay taasi dhacdo cafi kuwa ku aflagaadeeya ku weerara laakiin haw naftaada kee kale ayaa u qalma fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar kuna soo biir kanaalka haddii aadan weli ku soo biirin